iyadoo ay weli ka soconayaan daafaha dunida munaasabadaha loogu dabaaldagayo isla markaana lagu weyneynayo xuska 18 May oo ku beegan maalintii qarannimada Somaliland ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa si ballaaran looga xusay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Munaasabad ballaaran oo ka dhacday Hotel Hilton oo ku yaala magaalada Bloomington ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland, mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee gobolka Minnesota, gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee North America, gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee gobolka Minnesota, cuqaal, waxgarad, haween iyo waliba dhalinyaro tiro badan. ugu horreynna waxaa munaasabadaasi hadallo ka soo jeediyay qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay iyagoo ka warramay taariikhda Somaliland iyo qiimaha maalintan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waxaan u dabaaldegaynaa 33 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii Jamhuuriyadda Somaliland. xafladani waa xaflad dabaaldega oo lagu taageerayo inaga oo dibadda joogna dalkeena Somaliland. 18 May in la helo oo sharafta maanta Somaliland ku nool tahay iyo karaamada iyo nabadgelyada ee aad arkaysaan habeen hore madaxweynaha isaga qof shicib ama dib la dabaaldegaya khayriyadii Hargeysa adduunka meel laga helo Afrika iyo Yurub iyo Mareykanka toona ma jirto. runtii waa wax lagu daydo Somaliland 33 sano waxa ay Soomaaliya tabaysay bay ilaa hadda sameeyaan. doorashada ha noqoto, dhinaca dhaqaalaha ha noqoto, waxbarashadii ha noqoto, meel walbaba waxay ka taagan yihiin number 1. runtii way istaahilaan in ay meel istaagaan. waxaan leeyahay doorasho bilaa turxaana qabiil aan hoosta ku wadan ku ololeeya dhibaato badan bay nagu haysaa ololehu markaasi guracan loo adeegsadii qabiil. haddii aan nahay waqooyi ilaa iyo koonfur jaaliyadda direed oo degto waxaan garab taaganahay si qaas ahaan beesha wardeeca la yiraahdo waxaan garab u nahay Somaliland. arrinta weyn ee qiimaha badan ee nu rajaynayno ee nagu soo dhow ee ah in Somaliland ay ka mid noqoto wadamada caalamka ilaa aqoonsado Ilaahay inuu suurto geliyo. intiina halkan maanta joogta haddii aynu gacmaha is qabsanno qof waliba rool iyo door fiican ayuu qaadan karaa. waxaan ku faraxsanahay inaad caawa halkan nagala soo qayb gashaan idinkoo sidaa u qurux badan u dhalanaya u nuuraya inaynu ka wada qayb qaadanno dhammaan teemba jaamacadda Sheikh University of Science Technology oo la bilaabay. maanta farxad gaar ah ay tahay Somaliland oo dhan. maanta waa maalintii xornimada la soo noqonay. Happy 18 May. dhanka kale waxaa iyaguna munaasabadaasi hadallo ka soo jeediyay mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee gobolka Minnesota iyagoo dhammaantood hoosta ka xariiqay in lagu dadaalo midnimada ummadda reer Somaliland oo aan lagu milmin caadifada doorashooyinka. dadka quruxda badan ee sharafta badan oo gacmaha is haysta ee reer Minnesota oo maanta soo buuxiyay xafladan. si kastoo loo kala duwan yahay xusbi ahaan, si kastoo loo kala aragti u duwan yahay, marnaba aan qarannimada Somaliland dayallayal cidina ku ridi karin. inkastoo ay gudoomiyaha kulmiye state of Minnesota haddana waxa weeyaan siyaasad caawa meesha uma animan waxaan u imaynaa idin kala qayb qaato. gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee North America mudane Ducaale Nuur Sancaale iyo gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee gobolka Minnesota mudane Cabdiqani Xaaji Oktoobar oo hadalka iska daba qaatay ayaa si weyn ugu mahad celiyay dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi. sidoo kalena waxa ay ku dheeraadeen qiimaha ay maalintani leedahay. anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan ballaaran ee qarannimada Somaliland sanad guuradii 300aad waxaan leeyahay Somaliland socdaasho samada dusheediyo xidigahay ku socotaa soo noqon mayse kii sugaayo samir baan leeyahay. Happy 18 May. waxaan kaloo mahad celinayaa uqaasha sheekhyada siyaasiyiinta wasiirada dhammaan marti sharafta nala joogtay. waxaan jecelahay ugu boorinayaa inaan naftiina xitaa Soomaaliland iyo qarannimada dhaafsan kartaan laakiin qabiilka ka gudubtaan. gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo afmeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland mudane Liibaan Yuusuf Cismaan waxaanu ku dheeraaday qiimaha maalintani isagoo jaaliyadda reer Somaliland kula dardaarmay inay adkeeyaan midnimada iyo wadajirka reer Somaliland. maanta waa maalin weyn
18 May Somaliland waxa loo xusaa dhowr arrimood baynu xusaynaa kow waxaynu xusaynaa inaynu isxasuusino halgankii aynu u soo marnay maalintan inaynu dalkeenna gobonimadiisa dib ula soo noqono 1991 waa maalin aynu ku hodmanay aynu ku barakownay aynu ku qurux badanay oo aynu dunida kala dheernahay 18 May qarannimadeena waa inaynu ilaashanaa maalinta qarannimadeena la soo weeraro dadka reer Somaliland waa inay madaxa sare u qaadaan oo ay kaalintooda halkii joogaan ay buuxiyaan ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi heeso qiiro leh oo ka turjumaya qarannimada Somaliland ku soo bandhigay fanaaniintii madashaasi lagu soo casuumay